دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد. إيران وهدل له تاريخ لو كن يشنبقلو سنة بلس أفرتنا تدور سنة قدام بيسي هو لف دونت وقش قوده reer galbeedka maanta adduunku wuxuu qarka u saaran yahay dagaalkii ugu weynaa ee qarniga ku soo dhawaada channelkeena si aan kula wadaagno xogaha dahsoon haddii aad nagu cusub tahay fadlan inagu soo biir oo subscribe inoo saar gambaleelkana furo si aan kuu soo gaarsiino muuqaaladeena xiisaha leh maanta waxaan eegaynaa maxaa dhacaya haddii Mareykanka iyo Israa'iil ay go'aansadaan inay dagaal ku qaadaan Tehran si aan u fahno mustaqbalka waa inaan dib u eegnaa halkay wax ka bilaabmeen muuqaalka like saar aragtidaadana nagula wadaag kommentiga qarnigii 20aad boqortooyadii Pahlavi Iiraan waxay dardar gelisay casriyeyn degdeg ah oo la jaan qaada dunida horumartay iyo dhismaha quwad militari oo lixaad leh taasoo hormuud ka ahaa boqorkii Iiraan ee Maxamed Reza Shah boqorku wuxuu dalka u horseeday horumar dhanka dhaqaalaha iyo xuquuqda bulshada ah balse dhalaalkaas dusha sare ka muuqda wuxuu qarinayaa booga gudaha ah nidaamkiisu wuxuu ku dhisnaa caburin siyaasadeed iyo awoodda ciidanka sirta ah ee Savak markii ay isbiirsadeen musuqmaasuq baahi sinaan la'aan dhanka hantida ah iyo dareenka culimada diinta u arkaya casriyeynta Shah mid lagu tirtirayo dhaqanka islaamka waxaa qarxay kacdoon shacab oo xooggan sanadkii 1979kii mowjadihii dibadbaxyada ee horkacay Ayatollah Khomeini ayaa dhismihii boqortooyada ruxay taas oo ku qasabtay boqorkii inuu dalka ka cararo halkaasna waxaa ku burburtay mid ka mid ah nidaamyadii ugu faca weynaa dunida kadib markii uu Shah dalka ka baxay waxaa Iiraan si weyn loogu soo dhaweeyay Ayatollah Khomeini maalmo gudahood nidaamkii dalku wuxuu isku bedelay jamhuuriyad islaami ah wareegidii dalka ee wadaadada kadib waxay xiisad xasaasi ah ka dhalatay markii koox arday Iiraaniyaan ah ay xoog ku galeen safaaradda Mareykanka ee Tehran halkaas oo ay muddo 444 maalmood ah ay ku haysteen 52 diblomaasiyo Mareykan ah falkaas ayaana dhalay colaad qoto dheer oo u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan taasoo ilaa maanta taagan sanadkii 1980kii Saddam Hussein oo ah madaxweynihii dalka Ciraaq ayaa weerar ku qaaday dawladdii Urdunka ahayd ee Iiraan isagoo taageero ka helay Mareykanka midowga Sofiyeeti wadamada Carabta dagaalkaas oo socday 8 sano wuxuu ahaa kii ugu dhiiga badnaa qarnigii 20aad Iiraan waxay weyday qiyaastii 1 milyan oo qof laakiin nidaamka wadaadadu wuxuu dagaalka fursad u siiyay inuu dadka ku mideeyo mucaaradka gudahana ku tirtiro markii uu sanadkii 1989kii geeriyooday hogaamiyihii kacaanka Ayatollah Khomeini waxaa talada dalka la wareegay Ayatollah Ali Khamenei isagoo taliyaashiisa dhanka militariga gaar ahaan hoggaanka sare ilaalada kacaanka waxay hindiseen qorshe cusub oo ka duwan qaabkii hore ee difaaca waxay garwaaqsadeen in Iiraan aysan awood iyo teknoolojiyad ahaan kula tartami karin Mareykanka iyo quwadaha waaweyn dhanka diyaaradaha dagaalka iyo maraakiibta casriga ah si ay u daboolaan daldalooladaas Iiraan waxay samaysay aagga difaaca fog xeeladan oo ku dhisnay in dhufeysada difaaca dalka laga fogeeyo xuduudaha Iiraan iyadoo shabakad ballaaran oo saaxiibtinimo iyo maleeshooyin xoogan laga dhex dhisay dalalka Ciraaq, Suuriya, Lubnaan iyo Yemen ujeedada istiraatiijiyadan ayaa ahayd in la abuuro awood kale oo aan toos ahayn taasoo haddii Iiraan khatar soo wajahdo u saamaxaysa inay dagaalka ballaariso iyadoo isticmaalaysa kooxaha ay gacanta ku hayso sida Xisbullah iyo Xuutiyiinta tani waxay Iiraan u ogolaatay inay noqoto quwad aan lagu dhiiran karin maadaama ay gacanta ku hayso furayaasha ammaanka ee gobolka oo dhan iyadoo adeegsanaysa dhismahan militari ee ku baahsan xuduudaha dalalka dariska la ah sanadkan 2026 Iiraan waxay dhamaystirtay shabakadii gantaalaha ugu weyneed una casrisaneed gobolka bariga dhexe iyadoona isla markaana qarka u saaran inay gaarto awoodda hubka nukliyeerka waa tallaabo ay si adag uga soo horjeedaan
Maraykanka iyo Israa'iil. Iiraan haddii weerar militari lagu qaado ma noqon doono mid ku kooban xuduudaheeda oo keliya, iyo waxaa la filan karaa in boqolaal gantaalada nooca balistiga ah ay ku hobtaan saldhigyada Maraykanka ee gobolka iyo magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil. Laakiin khatarta intaas uun kuma koobna. Iiraan waxay haystaa kaarka ugu dambeeya ee dunida ku curyaamin karto, kaas oo ah xiritaanka marinka Hormuz. Tallaabadaasi waxay ka dhigan tahay in shidaalka dunidu istaagi doono, taasoo horseedi doonta in dhaqaalaha caalamku uu galo burbur iyo hoos u dhac aan horey loo arag. Marka loo eego cududa militari iyo saameynta ay ku leedahay marinada caalamiga ah, weerar kastoo lagu qaado Iiraan wuxuu noqon karaa mid dunida khatar weyn gelinaysa.